haddii aad horey ugu maleynaysay inaad u baahan tahay budget badan si aad u bilowdo xayeysiin Facebook, taasi sax ma aha. Fiidiyogan waxaan kugu tusayaa sida aad ugu bilaabi karto xayeysiin Facebook $5 iyo wixii ka yar, isna aad ka heli doontid natiijo wanaagsan kaasoo ganacsiga yar oo aad u samaynaysid xayeysiinta dakhli soo gelin kara. Businessyo qaar ama xayeysiimo qaar dad samaynayo waxay saaraan $3 ama $10 ama $20, laakiin waxay aad uga dhinteen dhanka contentiga ama dhanka muuqaalka. Waxaa laga yaabaa in sanadkii la soo dhaafay 2025 ilaa hadda inuu qofkaas isticmaalayo hal fiideo maalin walbana oo saarayo xayeysiin saarayo taasoo ku caajisayo algorithm-ka misane keliya ee naqanaysa xayeysiintaada ama budgetkaada mid donation ama loogu sadaqaystay ninka la dhahayo Mark Zuckerberg ama Meta. Inta aanan muuqaalka guda gelin waxaan kaa codsanaynaa inaad hal mar joojisid, subscribe saartid, muuqaalkan aan like gareysid, misana aad banaanka uga baxdid aad ku qortid page-ka ama meesha search-ga Cabdicasiis Amjad si dad badan oo u gaaro annagana ay dhiirigelin badan ee noogu sii naqato si aan usoo diyaarino muuqaalo badan kuwaasoo la xiriiro digital marketing-ka khaasatan social media marketing. Inta aan isla sameynin xayeysiin $5 aan ugu talagalnay, tusaale xayeysiintan waxaan sameynay after ciid, maalmaha ciida kadib, waa small budget, waxaan isticmaalaynay $5. hadda waxaa ku baxay $27. customer linki keliga waxaan ku helaynay wax ka yar 0.01 qiime aad ama ka hooseeyo. ilaa 3,000 qofood ayaa linkigii kiligareeyey. tusaale hadda ilaa intaasaa daawata fiidiyoga. waxyaaba muhiimka ahna waxaa waaye raidka lagu qiyaasayo in xayeysiintan dadka ay jeclaysteen waa 51%. ilaa 90,000 qofooda muuqaalkii daawatay, dad badan kamidana way dhammaysteen oo ilaa 5% ah. waxyaabaha kaloo muhiimka waxaa ka mid ah in maadaama xayeysiintan ay keliya 5 maalin camal ay socoto, in ilaa dad badan oo badan ay soo hadleen. marka waxaan dhihi karnaa xayeysiintan budgetkeedana aad u hooseeyaa, qiimaheeda aad ayuu u hooseeyaa, oo qiimaha linki kiliga lagu helayo ama customer kiliga aad u cheap u yahay. marka waxyaabaha keenana waxaa waaye waxaan sameynay updateska iyo waxyaabaha saxda ah ama dariiqa saxda ah ayaan u marnay si xayeysiinteena aan ugu talagalnay businesskan oo small businesska ah oo budgetka $5 awoodo maalintii inuu bixiyo inaan u sameyno. si aan u sameyno xayeysiin guuleysato anagoo isticmaalayna small budget sida $5 oo kale, waxaan u baahannahay inaan stebiskan aan marno. ugu horeyn in aan la soconno updateska ku imaanaya mar walba Meta ama Facebook, kuwaasoo la jaan qaadaya AI-ga ama hadba marka hadda la joogo algorithm-ka Android oo kale, in aan la jaan qaadno, aan akhrino articleska ama aan la soconno waxyaabaha isbedelay qaababka xayeysiinta loo sameynayo ama freemiska la isticmaalayo ama especially waxa la dhahayo ad creativity-ga aan isticmaalaysid. in aan soo diyaarsano creativity ama muuqaal ama sawir kaasoo la jaan qaadaya updateska sida aspect ratio-giisoo kale inuu yahay reelska ama vertical videoiskoo kale ama vertical image oo design ah inaan soo diyaarsano, kuwaasoo haddana leh hook ama soo jiidasho fara badan. waqti fara badanna in aan ku bixino diyaarinta creativity-ga hadday naqato image ama hadday naqato video. waxaad arkaysaa businessyo qaar ama xayeysiimo qaar dad sameynayo waxay saaraan $3 ama $10 ama $20, laakiin waxay aad uga dhinteen dhanka contentiga ama dhanka muuqaalka. waxaa laga yaabaa in sanadkii la soo dhaafay 2025 ilaa hadda inuu qofkaas isticmaalayo hal fiideo maalin walbana oo saarayo xayeysiin saarayo taasoo ku caajisayo algorithm-ka misane keliya ee naqanaysa xayeysiintaada ama budgetkaada mid donation ama loogu sadaqaystay
ninka la dhahayo Mark Zuckerberg ama Meta. Waxaad ka dhimantay dhanka creativity-ga, muuqaalkaaga ama sawirkaaga aad xayeysiinta saaraysidne wax ka badan sanad ama wax ka badan dhowr bilood ayaad ku soo celcelinaysaa. Marka si xayeysiinteena $5 ee u guuleysato, kow waa inaan creativity fiican halkaa ka dhisnaanaa. talada ugu fiican aan bixino ama marka aan la shaqeynayo shirkadaha qaar waxaan ku recommend gareeyaa ama mar walba waxaan ku dadaalnaa in weekly update aan sameyno. Micnaha in isbuuc walba update la sameeyo. Tusaale isbitaal aad tahay, xayeysiin ayaa sameysaa. Isbuuc kasto maalinka Jimcadoo kale inay ku diyaarsan tahay muuqaallo ka duwan kuwii horeeto ayaa aad recommended u ah. Waxaa kaloo aad muhiim u ah markii aad sameynayso creativity-ga in aadan u dhaqmin ama aadan isticmaalin waxa la dhahayo sales language, micnaha luqad wax iibinayso. waxaan ula jeednaa markii muuqaalka uu noqdo alaabtan ayaa kaa iibinaynaa, adeegaanaa bixinaynaa, sidaanaa yeelaynaa, xoogaa dhanka luqadda lagu diyaarinayo muuqaalka ama siiqada muuqaalka loo soo gudbinayana inay noqoto qaabab kala duwan kuwaasoo kulminayo over ama problem solving ama maaragta testimonial, micnaha waxyaabo muuqaal oo samayn kara ama dadka ay soo jiidan karo ama maaragtay in product testing dadka inay sameeyaan oo kale. waxay ku xiran tahay sectorka aad xayeysiinta ka sameynaysid. intaas haddii aan soo diyaarino samayn kartaa xayeysiin oo maaragtay oo guuleysato. tusaale hadda marka haddii aan isla sameyno, mar walba waxaa kaloo muhiim ah in xayeysiintaada aad ka saari kartid ama aad awoodid inaad isticmaasho ads managerka, especially waxaad aad u recommended u ah sales objective inaad isticmaashid. waxaa kaloo aad muhiim u ah marka aad saleska isticmaalaysid haddii ay suurtagal tahay. badanaa businessyada dalka maaragtay aad arrintaasna ay uga dilan yihiin in aad leedahay maaragta waxa la dhahaya conversion tracking ama waxa la dhahaya pixel ama conversion API, micnaha daatada dadka soo booqanayo ama dadka kula falgalayo in la kaydin karo. taana maaragta aad ayaan maaragta uga liidanaa haddii nahay dhanka Soomaaliya. businessyada Soomaalidana aad ay dhanka uga jiifaan. so marka haddii ay suurtagal tahay in aad businesska u samaysid website, isku day inaad website u samaysid. dadka qaarna websiteka ha soo booqdaano. haddii ay suurtagal ku aheenin, waxaa fiican in aad audienciga aad samayso custom audience, sida dadka fiidiyoyada daawaday ama maaragtay dadka pagekaaga laagariyey in aad ku samaysid retargeting. micnaha maadaama budgetkeenu yar yahay, waxaan rabnaa in uu sameeyo ROI fiican. marka waa in ugu horeen xayeysiin caadi ayaan sameynaynaa. isbuucyo markay socotane xayeysiinteeni dad oo maaragta new audience waxaan u bedelaynaa retargeting inaan sameyno. retargeting oo loola jeedo dadkii hore muuqaalkaaga daawaday ama dadkii hore pagekaaga laagariyey ama dadkii websitekaaga booqday ama maaragtay dadkii wax kaa iibsaday. so marka had tusaale haddaa video dhahno oo aad maaragtay magac u bixino, waxaa dhihi kartaa people who have viewed at least 10 second, micnaha qofkii 10 second iga daawaday, that means interested ayuu ku yahay businesskayga. okay maaragtay waxaa dhihi karnaa 306 sanadkan dadkii daawaday, audience name. okay marka aan magacaas kale u baxsano, video ayaa dooraneynaa. okay videogu marka aad dooranayno, marka pageka aad rabta ayaad kasoo qaadanaysaa. okay marka tusaale hadda waxaan kasoo qaadanaynaa video pageka maaragta tusaale midka hadda ugu dambeeyo kale aan xayeysiineynay. okay kanoo kale asigana okay this one aan isticmaalaynaa and this one and this one. kuwaasaa ugu dambeeyo. okay saddexdaas video oo xayeysiimo ugu dambeeya ah oo kale ayaan rabnaa dadkii maaragtay la falgalay inaan ka sameyno custom audience. marka isla custom audience-ga dadka videoas daawaday ayaad waxaa dhihi kartaa waxaa kasii sameynaysaa look like audience oo ah tusaale dadkaas dad u eg oo kale. okay job cleaning video views. okay marka halkaa waxaa inoo sameysan waxa la dhahayo retargeting ayaan ku sameyn karnaa dadkii muuqaaladeen hore u daawaday in mar kaleeta si special ah in maaragtay iyaga aan target gareeno, budgetkana iyaga keliya aan kusoo koobno maadaama dadka qaar muuqaalada ay si fiican u daawadeen oo kale. haddii marka kanoo kale waxaa la sameeyaa marka aadan heli karin waxa la dhahayo in dadka websitekaaga soo booqday
in aad samaysato oo ah Excel ama maaragtay API. Marka hadda sidaas oo kale ay inaad u diyaarsatid iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha guuleyn karo xayeysiinta aan sameynayno small budgetka ah. Haddii contentiga aan aad ugu dadaalnay, retargeting aan sameynay, ee, xayeysiintan aan ka saarayno ads manager xayeysiintaas misena aan isticmaalayna sales waxay noqon kartaa mid guuleysato. Okay, halkan marka aan joogno waxaan isticmaalaynaa budget strategy, waxaan isticmaalaynaa CBO ama campaign budget optimization ayaan isticmaalaynaa. Waxaan isticmaalaynaa $5 ayaan isticmaalaynaa. Sometimes marka ad set budget waa la isticmaalaa ama maaragtay ABO wax loo yaqaano. ABO-ga marka waxaa aad u isticmaali karo high ticket price ama dadka businessyada waaweyn oo maaragta barjaiskooda lacag fiican oo ka soo galaya. Tusaale halka qofood ay u shaqeeyaan $500 wixii ka badan laga qaadayo. Low ticket price waxaa ku fiican inuu isticmaalo CBO. Waxaan isticmaalaynaa messages ayaan isticmaalaynaa. Messageskaas markaan isticmaalayna marka waxaan imaanaynaa tusaale iskaga soo qaadanaynaa waa WhatsApp ayaan isticmaalaynaa. Markii la joogo marka updateska waxyaabaha hadda aadka muhiimka u ah waxaa ka mid ah in aad maaragtay aad isticmaashid Advantage Plus maadaama budgetkeena uu kooban yahay. Waxyaabo badan oo maaragtay kuma sii dareyno oo maxaa la dhahaa oo aad aan waqti badan ugu sii bixinayno. Okay, marka hadda waxay ku xiran tahay targetka dadka aad rabto. Women's tusaale inaan doorano detail targeting oo kale mostly updateska markii la joogo ama hal xaba ayaa la geliyaa oo hal interest ama waxaa laga dhigaa free. Waxaa la dhahaa AI ga adiga dooro. Further limit markii meeshan oo kale aan ka dhigayno waxay u baahannahay maaragtay in waxyaabo kale aan ka sii reebno. Marka intaas markii aan joogno meelaha ugu badan oo waqtiga ugu badan inaad ku bixisid ay tahay waa ad levelka. Ad levelka marka updateska ugu badan ad levelkana waxaa more focus gareysaa inaad siisid ad creativity kala duwan. Marka si marka $5 aynan nooga khasaarin oo xayeysiinteena ay u noqoto mid guuleysato, waxyaabaha aan samayn karno waxaa ka mid ah in images maaragta aan isticmaalno creativity-ga aan ka dhignay imagekaas oo aan ka dhigayno sizekiisa vertical ama maaragtay aspect ratio-ga oo TikTok oo kale inaan ka dhigno. Then aan ku qorno text soo jiidasho leh iyo background ka tarjumaya businesska aad wax u xayeysiinaysid. So marka imageska badanaa cheap waaye cost per kiligooda ama qiimaha xayeysiinta aad ay raqiis u noqonaysaa. Waxaan kaloo isticmaali karnaa inaan video isticmaalno videogaas oo vertical videos ah laakiin aan ku tijaabinayno ilaa 4 video ama ilaa 5 video inaan soo xulano halkaana aan soo gelino aana duplicate gareeno maaragtay maxaa la dhahaa ad creativity-geena aan duplicate ku sameyno ilaa 4 inaan duplicate ahaan aan u sameyno. Kadibna qayb kasta ama muuqaal kasta aan halkaas soo gelinayna aan u sameyno ad copy u gaar ah sida primary text ama maaragtay headlines oo mid kasto aan ku tijaabinayno midka uu qaadan doono Android ama maaragtay AI-ga asiga ayaa xulan doono. Taana waa samayn karnaa in 5 muuqaal aan soo gelino. Haddii kaloo muuqaalo badan aadan haysan, hal muuqaal aan isleenahay waa aad u qurux badan yahay in aan keliya isticmaalno. Intaas markaa ku dayno xayeysiintan isbuuc ay socoto, isbuucaas ayaa waxaa fiirinaysaa ROI ama waxa ka imaanayo xayeysiinta waxa ka soo laabanayo ama rowska xayeysiinta ka soo laabtay ama click rate-ka ama WhatsApp-ka dadka ka soo hadlay in aad qiimeysid. Isbuuc walbana aan xayeysiinteena $5 aheeday aan beddelno ama aan update ku sameyno. Mar walbana xayeysiinteena haddii ay suurtagal tahayna in aan Excel ku xirno ama website aan ku connect gareyno si data meeshaas u lahaato. Intaas ayaa waxaan dhihi karnaa xayeysiin guuleysato oo $5 ah ayaan samayn karnaa ama $5 xataa qasab maahan $3 iyo wixii ka badan ayaan xayeysiin ka samayn karnaa. Laakiin waa anagoo la jaan qaadayno updateska anagoo maaragta waxyaabo badan aan isku soo xirxirayno. Waxaan diyaarinay koorso dhammaystiran kaasoo kugu sharxeyso ama kaa dhigi karto social media marketer awoodo in ganacsiyo waaweyn u sameeyo xayeysiin ama businesskiisa oo u sameeyo xayeysiin guuleysato leh daato saxan from Pixel maaragtay to Android ama isbedelada cusub ee ku imaanaya Meta Ads-ka weli
xayeysiinta Facebooka aad ayay u tahay mid popular ah, adduunka aad u isticmaalayo, lacag fiicanna la gelinayo, budget badanna lagu bixinayo, hows ama return on ad spend badanna uu ka imaanayo. Laakiin haddii keliya adiga xayeysiintaada aysan wax dhaqdhaqaaqa aysan lahayn, adiga ayuu wax kaa qaldan yahay. Iska bedel. Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa muuqaalkii aan uga hadlaynay sida loo sameeyo xayeysiin Facebook oo $5 ah. Waxaan rajeynayaa in wuxuuna ka faa'iiday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.